بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا waxaan rabaa cashir inaan caawa ka bixiyo maanta programkan la dhaho Zoom-ka sida loo isticmaalo program waxbarasho free ah oo maaragtay runtii ku baran karto adoo iska jooga gurigaaga gurigaaga adoo jooga ayaad maaragtay ku baran kartaa wax lacag oo koos garanaysan ma jirto kaliya waxaad u baahan tahay inaad isdiiwaan geliso adna dooratana markaad isdiiwaan gelinayso meelsha maaragtay xarumo waxaa jira loogu talagalay oo ku caawinaya inaad marka xarunta aad doorato haddaan hadda ka soo qaadno waa kan waxaa la dhahaa be connected ayaa la dhahaa website-ka waxaa taageerta dowladda dhexe ee Australian government oo dowladda federaalka ah laakiinse hay-addan la dhaho be connected ama good foundation ayaa arrinta maamusha marka talaabada u horeysa ku dhaqaaqayso waxa weeye inaad isdiiwaan geliso adoo ku dhufanaya kan halka maaragtay ku dhufanaya marka markaad ku dhufato kaasa wuxuu xilsaaran yahay labadaba inaad sign in aad samaynayso oo macnaheedu tahay account baad already ka samaysatay marka hadda waad soo noqonaysaa waxaad rabtaa inaad marka dana aad gasho iyo inaad maaragtay aad hadda samaysanaysa account mid kasta waa noqday labadaba kaasad ku dhufan hay'ad sugu imaan haddii marka aad account leedahay ama email account aad samaysatay emailkaaga ayaad halkaa gelin halkaasaad ku qori passwordka aad samaysatayna halkan aad ku qoran passwordka aad samaysatay marka ma aho passwordka emailkaaga ma aho waa password aad samaysatay markaad accountinga samaysanaysay waxaana fiican haddaad computerka aad isticmaalayso adigu aad leedahay ama mobilekaaga u yahay ama tabletkaaga ama laptopkaaga u yahay inaad isagana meesha remember username dhahaysa aad kili ka siiso si marka hadhow mar kastaba aadan emailkaaga ugu qorin meesha taas waa haddaad account samaysatay haddaadan samaysanin dhinacnaad usoo wareegaysaa waxaadna maraysaa afartaa step koowaad waxaa weeye hawaanaka is this your first time here haddaad markii koowaad halkan aad timaada ay tahay hi for full access of the course you will need to take a minute to create a new account waxaad u baahan tahay 1 daqiiqo inaad u diyaarsato oo account cusub aad ku samaysato for yourself on this website-kan account aad ka samaysato and step-ka aad u baahan tahay waa midka koowaad click create a new account waa kii marka hore aan ku dhufanay macnaha ma soo naga hooseeyo hoosta ah waa kan waxaad create a new account button-kaas oo dhahaysa create a new account ayaad maartay ku dhufanaysaa kalabaad marka aad ku dhufato fill the short form with some information about you akhbaar waxyaalo information yar oo adiga ku saabsan ka buuxi formka asaga ah so we know it's your next time si marka dambe aan ku ogaano inaad adiga tahay 3 click sign up waa meesha date korkan ahayd markaas aad ku dhufanaysaa sign up for free button markaas ama cafan waxaad marka ku dhuf markaad buuxiso yaad marka dadna waxa ku soo baxaysa meel dhahaysa sign up for free button ka dhahaysa sign up for free yaad marka ku dhufanaysaa afraad waxa weeye start exploring haddaba aan ku bilowno marka qodobkii uu yiri waxay ahayd wuxuu yiri click create a new account aan ku bilowno marka waa kan waa ka marka waxa ku soo baxay formkan yar ee buuxinayso ku sheegayay magacaaga koobaad aniga hadda magacayga kale xamdi adoo keyboardka isticmaalaya first name-ka last name magaca kale ugu dambeeyana waxa weeye aniga waa Ali tana marka arrin muhiim ah oo idin ka codsanayaa inaad maaragtay si hay-addaas u ogaato in aan idin
caawin aad ka hesheen State Computers oo organizationka anigu aan maamulo inaad halkan ku qortaan organizationka idin caawiyey oo ah macnaha midka aniga aan maartay aan maamulo wey oo la dhaho State Computers sorry aan ku soo celinayaa ESTATE space marka computers COMPUTERS State Computers markaad bilowdo inaad ku qorto xarafka ugu horeysa iyo magacii kuu soo baxaya State space waxa uu soo baxayba hadaan sii wadno wasaga noo soo baxaya computers marka hadaad rabto waad dooran kartaa waa kan xusuusta ku jira waa noo soo baxay laakiinse waa kan markaan qornay State Computers waxaa noo soo baxay markaa kaasaa noo soo baxay incorporated kaasaad marka dooratay markaad doorato marka emailkaaga markaas halkan marka waxaad ku qoraysaa emailkaaga waxaan ku qori markaa organizationka ama companyga emailkiisa contact@statecomputers.net waa emailkan companyga uu leeyahay weeye marka waxaan contact waa emailka hadda marka kaasi waa anaa hadda ku qoraya laakiin idinku emailkiin halkan inaad ku qorataan weeye hadday hotmail tahay hadday gmail tahay waxay tahayba halkan marka waxaad ku qoraysaa password ayaad ku qoraysaa passwordkaasoo marka adiga mid aad xusanaytaa wuxuu ku leeyahay at least 7 characters waa inuu gaadho ugu anaas 7 xarfood kama yaraan karo passwordku waa inuu yar adkaado si uu dadka kale ugu sahlaan macnaha inay ka isticmaalaan macnaheedu ujeedadeedu wey kamerada midkan yar hagaajsanaya marka inaad 7 xaraf waa inuusan ka yaraanin at least 1 digit inuu mid kamida uu yahay mid inuu yahay digit waa inuu yahay macnaha waxaan u malayaa number inay ka wadaan taas midna waa inuu yahay at least 1 digit and at least 1 uppercase letter macnaha waa inay 7 xaraf ugu yaraan mid kamida waa inuu yahay number taas waxay ujeedaan digitka uga jeedaan 2 3 4 hataa eber 9 mid kamid ah inuu yahay at least mid inuu yahay ka kaleetana waa inuu yahay xarfahana mid kamid ah ka soo qaad hadaad ka dhigto magacaaga koowaad oo kale hadaad ka dhigto waa inuu xaraf mid kamid ah capital yahay ama ha noqdo midka ugu horeeya ama ha noqdo mid dhexda ku jira ama ka ugu dambeeya inta badan xarafka ugu horeeya yaa ka fiican si aad u xusato inuu capital yahay marka waa inaad number ku darto sida 1 or 2 or 3 or 4 oo kale waa inay xarfaha ay isna dabcan ay ku jiraan xarfo kale macnaha letters ah mid kamidana waa inuu capital yahay marka aan ku dayna kaas haddaan ku qori shuruudii si aan maartay u raacno hadda aniga xataa naftigeeda si security dadka hadday ruux ku ag joogo oo kale uusan u arag anuu unbaa gar og waxaan ku taybgareeyey idinkuna videoga kama arkaysaan ruux hadduu dhihi jiri lahaa agteeda taaganna xarfaha meeshaan ku qoray ma uusan arkeen ujeedaduna waxaa weeye inuusan ruux ku ag taagan oo kale ama ruux si kale xataa hadii lagaa duubahayo kaamera xagga dambe wax noocaas kale inaynan maaragtay arag marka dood unbaa ka soo baxaysa meesha waxa aad ku qortay ma arki karaan dadka kaleete ruux un keyboardka fiirinaya xarafka aad taabatay unbaa garan karaa waxaan u malaynayaa inay intaa ku filan tahay aan tiriable 1 2 3 4 5 6 7 8 waa 8 marka waa sax weeye marka passwordkii baan geliyey waxaa kaloo marka ku xigta tan marka waa inaad u fasaxdo u ogolaato oo maartay emailkaaga inay isticmaalaan wax kuu soo diraan I consent to receive emails
from Be Connected. waa optional, shardi ma oo inaad aqbasho. haddaad rabto oo rabto wixii cusub iyo wixii akhbaar iyo kulba wixii jira inay ku soo diraan tigkasi ka hoosii aad kanaasa muhiim ah. midkan dambe ayaa si aad isagoo muhiim ah oo laga aadan ka boodi karin. The E-Safety Commissioner waa commissioner dhan oo nabadgelyada macnaha internetka wuxuu saaran is collecting your personal information. wuxuu ururinayaa commissioner inaag wuxuu yahayba akhbaartaada. For more information we need this. waa iska basic, waa guddiga ururkani ama commissioner waa dowladda sida kuwa kale Centrelink, immigrationka lamida waa kuwa dowladda hoos yimaada weeye. dabcan sida ruux kasta marka garanhayo akhbaartaadii way ururinayaan si lacagtan ay kharash garaynayaan iyo website-kan ay samaynayaan iyo organization-yada ay taageeraan si ay ay u noqoto inay wax qiimo ku jiro oo dadku ay isticmaalahayaan ayaa de magacaaga iyo emailkaaga la ururinaya. saad ka aragteen beriga u horeysana oo intaan aqaanay wuu kasii daraa oo marka hore days of birth iyo waxaasi ku weydiin jireen. haddase inta la yareyn kara ayaa la yareeyay magacaaga, emailkaaga iyo password aad samaysato kaliya intaan baa ka qaadaya, wax kale kama qaadaya. marka waa inaad ku dhufato marka aad tiraahdo by signing up you agree to the terms and conditions. shuruuda ay u dejiyeen oo inta badan iska basic aasaaska iska ah ayaad aqbalaysaa. markaasaad ku dhufan, markaasaad dhidana kan haddana bidixda ku dhufan cancel hadaad tiraahdo macnaha wixii oo dhan ka noqonaya weeye. kanaad marka ku dhufanaysaa sign up for free. waa midii afraad ee marka day shuruudii ay noo sheegayeen ay lahaayeen kor nagu yiri waa inaad afarta shuruudood ayaa u baahan tahay samayso. ka u dambeeya waxa marka sign up for free macnaheedu waxa wax lacag ah laguma weydiinayo, waxana waad ku baranaysaa computerka ayaa u baranaya. marka kaasaan ku dhufanayaa. marka aniga hadda waan samaynay, waa dhammayn lahay, laakiinse maadaama on mar hore aan diiwaan geliyey emailkan waa iga emailkaas macnaha wuu garanhayaa. marka waxaan samayn emailka ayaan bedeli, mid kale aan ku bedeli marka si ay uu noogu socoto. haye emailka baan bedelay. marka emailka iyo marka bedelay marka aadaan ku celinaya haddana sign up ki information intoodii kale waan sidii weeye fiirin. marka okay, marka waan dhameeyey. magacayga meesha ka soo baxay Xamdi. website-kii baan marka ku jirnaa, waana diiwaan gashanahay oo magacayga meesha ku jira. waa ka aad aragto magacayga waxyaalaha aad ka bedeli kartaa, laakiin si log off naad samayn kartaa. marka haddaba welcome to Be Connected baa lidhi. kusoo dhawow Be Connected, inaad ku xidhanto dadka kale iyo mujtamaca iyo saaxiibadaada iyo ehelkaaga iyo dowladda waxyaalahaasba. Your Be Connected account has been created and you are ready to get started. waxaad maaragtay diyaar u tahay, diyaar bay kuu tahay macnaha inaad bilowdo. marka halkan marka waxaad ka bilaabaysaa view the topic libraries. marka waxaad fiirisaa topigyada ama library-ga haya topigyada aad baran karto ee meesha kugu jira. aan ku dhufana marka haye wadaad rabto waad baari kartaa search oo halkan aad ku qori kartaa, laakiinse waxaan ila qumanani inaad bilowga ka bilowdaan oo stepyadan u socotaan. sababteeda naftigeeda waxay ku noqonaysaa barasho aad baranayso sad computerka u isticmaasho, su'aalaha lagu su'aalahayo iyo waxa lagu waxaynayana ayaa iyadana macna ku samaynaysa oo maartay ku sii baranaysa. Tell us a little about yourself. wax yar nooga sheeg adiga, wax ku saabsan adiga ana xaaladda. macnaha waxa weeye computer waxaad ka taqaano weeye. And we will create a learning plan just for you. waxaan ku samaynaynaa qorsho waxbarasho oo adiga khaas kugu ah, asagoo ku salaysan dabcan wixii aad noo sheegtay. haddaba marka daad rabtood malaynayso isku kalsoon tahay oo xogoo computer ka taqaano, halkan aad ku qori kartaa oo search dhihi kartaa topics wax noocaas oo kale ah. type here search for the topics. laakiinse waxaan idinkula talin inaad marka kan ku dhufato oo tiraahdo start your learning plan. planninka learningkeena inaan bilowno. Okay, let's begin. aan bilowno by answering a few short questions. su'aala yaryar, su'aala
gaaban adoo ka jawaabaya about your interest in being online ku saabsan ama sababta aad u xiisaynayso inaad online noqoto and using digital devices iyo waxyaalaha aalooyinka ama qalabka digitalka ah sida telefoonka, laptopka, computerka iyo wixii la mid aha ayaad maartay adoo isticmaalaya we can recommend some topics for your library marka maadaama noo sheegtay waxoogo adiga kugu saabsan waxaanu kugula talinaynaa waxyaalihii aad baran lahayd ee kugu habboon inaad barato that might be suited to you kuwaasoo ay laga yaabo inay kugu habboon yihiin this will only take a couple of minutes dhowr daqiiqo ayay qaadanaysaa click on let's begin to get started let's begin ku dhufo si aad u bilowdo hayaan ku dhufan haddaba waa ka marka what would you like to look at today maanta maxaad u baahan tahay in aad fiiriso maanta maxaad u baahan tahay inaad fiiriso waxaa la rabaa san bilowga dib noqo waxaa la rabaa inay ogaadaan aqoontaadu meesha ay gaarsan tahay iyo waxaad xiisaynayso inaad barato the first thing we need to do is find out what you are interested in waxa ugu horeeyaan u baahan inaan ogaano waxa weeye muxuu yahay waxa aad xiisaynayso adigu waxaad xiisaynayso inaad barato haddadan marka asaga ah dib baad usoo noqon kartaa way isbedeli kartaa dabcan laakiin haddadan la joogo from these 3 topics afartan topic kan iyo kan click on the one that best describes you klikasi ama dooro midka kuugu fiican ee adiga ku tilmaamaya waxaan markaa idinkula talin ku horta aadan bilowno maxay kala yihiin ma waxa aad rabto miyaa I would like maxaad leedahay I would like to refresh my computer skills waxoogaa baan computer baan ka yara aqaanay wax baan ka aqaanaa inaan markaa soo cusboonaysiiyo ama aan maaragtay boorka ka afufo miyaad leedahay so waxaad leedahay I would like to connect with my family and friends bisa boorka afufid iyo waxyaalo soo xusuuso ma xiisaynayee kaliya waxaan rabaa inaan saaxiibadayda iyo qoysaskayga aan connection ku sameeyo macnaha sida facebooka whatsapp wixii la mid ah inaan ku xidhmo oon la xidhiidho macnaha miyaad rabtaa so waxaad leedahay I would like to learn something new today so waxaad leedahay saaxiibadaydii waan ku xidhnahay oo waan aqaanaa si aan ugu xidhmo oo waxaas waa caadi wey waan isku fillahay computerna maaragtay iyadana hadda dib inaan usoo intii aan aqaanay usoo boorka uga afufo ma xiisaynayay laakiinse waxaan rabaa wax cusub inaan barto maanta marka aniga waxay ila tahay tala ahaan markaad siday orderka u kala yihiin umar computer haba yaraadee xun baa ka taqaanaa su-aasha ugu horeyso macnaheedu ma inaad lagu leeyahay dadka wax ka yaqaanin kale inay tahay wuxuu yahayba ama garo ama ogow ama ogaanin wuxun baa ka taqaanaa marka isagaa ka bilow si marka aad maaragtay halka uga socoto kana aad marka ugu xidsiiso oo tiraahdo saan familigayga ugu xidhmeen haddaad marka ku xidhantooda og tahayna bilowga hore xataa intaad yar fiiriso dirbi waad ka gudbi kartaa marka ugu dambaysa marka inaad marka tiraahdo deedna waxaasaan rabaa inaan barto waxaas ayaan rabaa waa iska sida adventure oo kale iyo maaragtay inaad aad ka wardoonto oo meelo kala bedel u kala gudan marka aan ku fiirino midka ugu horeeyay ee dhahayay I would like to refresh my computer skills waa ka marka waa midkii dhahaysay waxaan rabaa inaan dib boorka uga afufo aqoontayda computerka your interests waxa aad xiisaynayso great now you can tell us a little about what topics you would like to refresh your knowledge about hadaba wax yar nooga sheeg waxaad u baahan tahay inaad maartay aad boorka ka afufto ood ka yar barato xiisadaha aad rabto inaad barato from these options please click on one that you are interested in today midka aad maanta xiisaynayso ku dhufo maxay kala yihiin saddex topic marka maxay kala yihiin learning how to use my device-kayga ama aaladayda ama shaygayga aan haysteen raba inaan internetka u isticmaalo ama ha noqdo mobileka ama ha noqdo computerka desktopka guriga yaalla ee weyn ama ha noqdo laptop ama ha noqdo tablet miduu doonaba ha noqdee inaan device-kayga isticmaalo ayaan rabaa mise waxaad leedahay using the internet device-kii waan haystaa waa ii diyaar waan isticmaali jiray waa ii taas waan isku fillahaye internetka saan u isticmaali lahaa ayaan rabaa inaan barto miyaad leedahay mise waxaad leedahay be safe online so waxaad leedahay device waan haystaa
oo computer ama laptop waan haystaa internetkana waan isticmaali karaa oo waan isticmaalaa sidii aan safe u noqon lahaa internetka viruska iyo hackerska iyo waxaa inay akhbaartaada la xada iyo waxyaalahaasoo kale saan isaga ilaalin lahaa ayaan rabaa inaan barto macnaheedu miyaa waan dhihi lahaa aniga ila tahay haddana midka ugu horeysa ka bilow inaha learning how to use my device haddaba markaan nidhi devicekayga aan nidhi which topic haddana keebaad haddana rabtaa waxaa weeye dabaqooyin isdul saarsaaran weeye noloshu inteeda badanna saasan weeye markaad mid ka gudubto mid kale ayaad usii gudbi oo markaa dhowr wax ay ku door ku yihiin midkaad ku dhaqaaqi lahayd topicaad rabtaa marka inaad ka bilowdo waxaan ku jirnaa deviceskii baan ku jirnaa iyo wixii internetka loo isticmaala qalabka internetka loo isticmaalo ay desktop computer miyaad rabtaa inaad barato waa computerka weyn maaragtay haddaan idinka tuso computerkan telefoonka sawirkan aan rabaa inaan idinku tuso desktop waxaa la dhahaa kaas oo kale computerkan ayaa waxaa la dhahaa desktop muuqda qaybo kale ayuu leeyahay laakiinse desktop waa computerka maaragtay fadhiya maaragtay kaas ayaa la dhahaa desktop noocyo kala bedelan ba signatiisu yara leeyahay laakiinse guud ahaan isku soo duuduubo desktop waa kaa weeye computerka ma maxaad rabtaa inaad barato touch screen computerada touch screenka screenka la taabto gacanta lagu taabto sida mobileka oo kaleete miyaad rabtaa inaad barato oo si waxaa ka mid ahaa waxaa jira computero baryahan waxaa jira waaweyn oo maaragtay touch screen aha ood gacanta ku maamulayso wax kasta aad ku maamulayso waxaa kaloo jirta ayadana ay smartphoneka waxaa weeye telefonadan inta badan hadda dadku ay isticmaalaan internetka laga geli karo telefoon laga samayn karo video lagu duubi karo sawir lagu qaadi karo programme la gelin karo kuwaas ayaa waxaa la dhahaa smartphone la dhahaa tabletku waxaa weeye dad badan waxay dhahaan iPad bay dhihi iPadku waa company sida aadan u dhihi karin iPhone markaad mobile ka hadlayso oo dhan aadan u dhihi karin waa ka iPhone-kaygii ama iPhone ma iga gadi adigoo macnaheedu tahay telefoon ma iga gadi inta badan smart ah oo kuwan aan sheegay waxyaalaha samayn kara ah si aadan u dhahaynin ayaadan u dhahaynin asagana iPad ma iga gadi ama iPad baan haystaa waxaa weeye ereyga ku habboon waa tablet weeye magaca ayagoo dhan ka dhexeeya ama ha sameeyo Apple oo kuwiisa la dhaho iPad ama ha sameeyo Samsung oo maaragtay Galaxy iyo waxyaalahaas ama kuwa kaloo fara badan baa jira waxaa weeye magaca waa loo yaqaano waxaa weeye tablet weeye kuwaasi oo gacanta lagu qaato weeye mise waxaad rabtaa inaad barato laptopkana sida uu carabi macnaha haddii la fasiro erey ahaan ingiriiska wuxuu yahay macnaha waxaa weeye dhabta korkeeda laabka ama dhabta la saarto maartay la dul saaro marka aanu ka bilowno meeshii ugu horeysay ee kombiyuutaradu asalkiisii waxa dadku isticmaalayaan uu ka bilowday oo ah desktopka ah haddaba desktopkii ayaanu dooranay well done you are all finished macnaha waad dhamaysay marka waxyaalihii aad barbaranaysay inaan rabnay inaanu kaa ogaano waa dhamaatay hadda waxaan bilaabaynaa computerkiisa aan isticmaal lahayn midkii aan dooranay ugu horreysay aan isticmaal lahayn kaasi marka waxaa weeye using a computer halka marka waxaad ku dhufanaysaa buttonka dhahaya start now dhahaya waxyar buu imaanayaa marka inaan yar sugno buttonka uu qaadanayo inuu yimaado yaradahay internetka meeshan aan joogaa waxuu yar slow marka wuxuu ku yiri marka using a computer in this course you will learn about basic functions of a computerka waxyaalaha
aasaaska ee uu sameeyo ayaad ka baranaysa daarto aad akhrin kartaan marka wuxuuna siiyey marka imisa wuxuu ina siiyey 6 wax oo maaragtay aan baranayno kaasoo mid kastaba uu ku sheegay inta daqiiqo ay qaadanayso midka koowaad computer and laptop parts qaybaha oo computer iyo laptopku ay ka kooban yihiin oo 5 daqiiqo qaadanaysa ka labaad turn computers on and off si computerada aad u daarto ama aad u damiso oo ay ku qiyaaseen 6 daqiiqo inay qaadanayso shardi ma oo laakiinse qiyaas bay ka siinayaan ana 20 daqiiqo iyo nus saac iyo ma oo waqtiga aad ku inta ku baranayso macnaheedu 3 changing computer settings inaad ka bedesho computerka inaad computerkii u bedesho settingkiisa ama maartay sidoo u shaqeynhayo si adiga ku haboon iyo sida aad rabto waxyaalaha waxa jirta computer ka bedeli karto intiisa badan waxa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad bedesho laakiin waxa jirta waxyaalaha yar yar oo saasi ahayn oo u baahan inaad ka bedesho si adiga kuugu haboonaado 4 programs and files programmada iyo fileska guud ahaan haddaan idinka siiyo waxa u dhaxeeya fileku waa sida warqad oo kale ama document wax la dhaho kale la mid tahay sida waraqad ruux u qorayso waraqad dawladda u dirayso iyo sawirka xataa natigiisu uu noqon karaa file si loo fiiriyo ka marka waxa weeye wax la sameeyay marka u baahan in meel kale in loo gudbiyo si ruux kale aad fariin ugu gudbiso ama qoraal oo kale aad u gudbiso fileku kaas weeye programsku waxa weeye sida uu ereygu ka muuqdo waa wax dhan oo waxyaalaha ka kooban fara badan shaqana qabanaya shaqada uu qabanayana kolba ay isbedelayso oo kolba wax gaar ah ku qabanaya ayaa programs leeyahay kuwaasi marka si ka bedelan ayaa computerka loogu isticmaalaa waa inaad horta marka hore geliso waxa la dhahaa installing inaad geliso install garayso oo inaad meel ka keento oo ka soo gadato inta badan kuwa free oo lacag la'aan way jiraan computerka marka gelinaysa markaas aad marka isticmaali program oo kale hadda waxa noqon kara kala dhaho Word Microsoft company Microsoft uu sameeyo Word la dhaho muxuu sameeyaa marka waxyaalo badan buu sameyn karaa laakiin mid ugu caansan ee uu sameeyo waxa weeye in uu waraaq aad ku qorto taasoo marka noqonaysa file marka waraaqdii qorto ruuxaad u qoraysay ama dawlad u qor ama ehelkaaga u qor ama saaxiibka u qor ama maartay waxaad u qoraysay markaad qorto yaad markaa deedna waxay noqonaysaa file bay noqonaysaa filekaasoo marka aad gudbin karto oo maartay meeshii aad rabtay aad geyn karto adoo haddana waxyaalo kale isticmaalaya shanaad waxa weeye computer safety nabadgelyada ama inaad aamin ka noqoto oo dhibaatooyin ay ka soo gaarin maartay si aad u ogaato waxyaalaha ka soo gaari kara computerka taasoo ina 5 daqiiqo ka qaadanaysa midda ugu dambaysa waxa weeye using a computer quiz 4 daqiiqo qaadanaysa macnaha su'aalo iyo jawaabo oo macnaha computerka ku saabsan lagu su'aalayo marka haddaanu ki horeyso ku dhufano waxay noqonaysaa waxa fiican marka halkan inta badan hadda waan maartay ma sii wadahayo idinka loo baahan yahay inaad barataan oo maartay processkan aad martaan laakiin si ka horeeya ayaan idin la sameeynaya ka horeeya marka muxuu leeyahay start waan leenahay haye su'aasha horeysa marka maxay noqotay maxay ahaa computer parts of a computer and laptop qaybaha uu ka kooban yahay computer oo ku dhacaysa inta badan macnaheedu ku dhacaysa guud ahaan markii loo dhaho desktopka iyo laptopka waxay ka kooban yihiin waxayna saa isugu dareen maadaama oo way kala weyn yihiin way kala yar yihiin sida ay isugu xidhan yihiin ba kala bedel mooyeen inay isku mid yihiin oo isku wada wax bay leeyihiin what's coming up maxaa soo socda take a moment fiiri screen halkan marka fiiri inaad garan karto waxyaalaha meesha ka muuqda si marka aad maartay aad isugu daydo inaad u fahanto su'aalaha soo socda ama activity soo socda start activity marka computerka hadda marka noo muuqda waa kan halkan waxa ka muuqda laptopka weeye markaan ku dhufano continue kolba mid ayuu calaamadayn ama highlight galeen sadoo u dhaha ingiriis weeye highlighting Soomaaliyan waa calaamadayn macnaha uu muujinayaa muuqaal gaar ah ayuu sameeyaa
markaas wax kaa su'aali markaa wax kaaga sheegi hadaba aan dhahno continue oo bottomka ku soo ku jirta okay adaba desktop computer hadaba waxaan ka bilaabaynaa qaybaha uu ka kooban yahay computerka desktopka ta oo horeysa marka waxay noqotay keyboard halkan ka muuqata midaas midab saaray oo midabka muxuu yahay purple meel laha Soomaaliya ma ku jiraan maraya kalarkaas oo kale mariyay aan ma garanayo keyboard marka you could the keyboard allows you to type information into the screen and navigate around the screen keyboardku shaqada uu qabanayo kaliya waxa weeye wuxuu ku suurtagelinayaa in aad screenka aad asaga screenka buu yiri laakiin waa meesha aad wax ka arkaysa weeye ahaan runtii waa computerka weeye computerka ayaad wax ku qori taasoo marka deedna screenka ka soo baxaysa wixii aad ka arkaysay aad qoraysay waxa kale oo ku suurtagelinayaa inaad navigate macnaha aad ku socoto macnaha screenka aad meesha wax ku qor lahayd aad ka bedesho hadaad rabto korkeeda wax ku qorto waraaq baad qoraysay oo kale hadaad rabto meesha u koraysa inaad ku qorto hadaad rabto inaad dhinacan ku qorto hadaad keyboard ka wadi kartaa midka dib waxaan ka baraynaa kuwa kale oo kaga fiican baa jira saas laakiin keyboardku xataa wuu ku samayn karaa continue hadana ku dhufaynaa salka haye mouse buu yiri waxa la dhaho mouse ayuu hadana calaamadeeyay oo taas mouse lets you select objects on the screen waxa screenka ka muuqda oo the computer dhaxaysa ka dhacaysa laakiin screenka kaaga muuqda ayuu mouse-ku ku suurtagelinayaa in aad doorato aad kan mouse-ka waa ka san aad samaynayo kale wax hadda falaadhan dhaqaaqaysa wada waa mouse-ka way sal objectiga ayaa waxa screenka ka jooga ayaa dooran on the screen continue haye computer case oo fiirso wuxuu yiri computer case sababtoo waxaan aad arkayso ee muuqda sidii hadaayeeto kii markaan idin tusayo kale computerka markaan idin tusayo computerka waxaan aad aragtaan computer runtii ma aho waa case-kii ama wixii weeleynayay computerka weeye marka taas ayay ereyga u isticmaaleen computer case the computer case meesha weeleynaysa computerka contains the central processing unit waxa la dhaho maskaxda isku duubo CPU ma lagu soo gaabiyaa waxayna u taagan tahay central processing unit ama qaybta asalka aaska oo aha ee wax maamusha sida maskaxda bilim aadamka oo kale which is often called the processor waxa iskaga soo gaabsadaa khaasan dadka waxaan computerka yara yaqaana processor ka wax maamula ama chip oo ah microchip macnaha waxa uu ka samaysan yahay you can think of the computer case as a containing the brain of the computer waxaad u arki kartaa computer case-ka inuu yahay meesha weeleynaysa ama haysa maskaxda computerka where all processing and storage happens meeshaasoo wax maamulida iyo wax hagaajinta iyo kaydinta labaduba ay ka dhacaan ay ku jiraan aan ka socono hore oo socono monitor marka kii kala wuxuu noqday monitor ama screen mid kale waad dhigi kartaa monitorna waad dhigi kartaa screenna waad dhigi kartaa the monitor is also known as the screen kana sana waa la dhahaa all it allows you to see and it allows you waxay ku ogolaanaysaa to see what's happening on the computer screenku waxa uu qabto ugu weyn waxa weeye inuu ku tuso waxa computerka gudihiisa ka dhacay asagoo wax ma sameeyo inta badan way kala fiican yihiin oo markaa deedna screenka ama qoraalka yar kala qurxinayaan oo inta la dhigi kara shaqo ay qabanayaan inta qurxinta ah laakiin si iyagu wax ma sameeyaan kaliya waxa computerka gudihiisa ka dhacaya bay ku tusayaan marka waxa la kaasi ama waa monitor ama waa screen waxyaalaha marka dadka barayso ama computerada aad aragto ama la macaamilayso aad ku arkaa waxa kamid ah dadku inta badan computerka waxay u yaqaanaan screenka marka hadda ruux computer screen qurux badan ama aad u weyn aad meel u soo dhigto si kasta oo computerka dhabta ah uu u xun yahay ama u fiican yahay ka aan bay fiirin oo computer fiican haduu screen ku qurux badan yahay fiican yahay weeye
haddaad computer qaali ah meel hoosta intaad soo dhigto ama meeshan dhigto aad u fiican oo aad u awood badan asaa screenku uu yahay mid tabar yar oo ama qorxan ama yar u yahayna waxay ku ruuxu dadka inta badan aan computerka aad u aqoon waxay dhahayaan kan computer ma aha ama computer fiican ma aha marka screenku waxa computerku uu sameeyo inuu ku tusayaa waxyaalaha uu sameeyo waxa kamid ah inuu qurxiyo hadii ama video yahay ama qoraalka ama screenkii uu ku wen yahay laakiin si xagga sameynta iyo awoodda markii la yiraahdo waa computer continue reebaan soconaynaa speakers wuxuu noo soo saaray haddana speakerkana iyagana waxay yihiin speakers allow you to hear sounds codka computerka ka soo baxaya ayaad ka maqlaysaa such as music hees oo kale or someone talking ama ruux hadlaya if you are video calling waxaan waa hadda waqtigan aad loo isticmaalayo video calling waxbarashada khaasatan lagu baranayo iyo kulamadii oo naftoodu ka dhacaya inay dadkii ay isla joogeen waqtigan hadda cudurkan coronavirus u dhacayo iyo video call marka sameynayso kale ay ku soo degelinaysa inaad maqasho ruux hadlaya some speakers are built into the screen kuwa qaarkood screenka ay ku samaysan yihiin oo qayb ka yihiin dhinaca kaga dhagan yihiin oo computer case ama waxay ku jiraanba computer case ka ay ku samaysan yihiin and sometimes they come separately marka qaarkood gaar bay u socdaan kuwan hadaan aragno gaar bay u kala socdaan midka halkaas fadhiya laakiin sidoo inoo sheegay kuwa waxa jira meeshan oo kale ama meesha korka ama geeska screenka kaga jira oo lagaga daray ama computerka halkan oo kale kaga jira ama dhinaca meelo badan la gelin karo continue haye hadda waxaan bilaabnay marka laptopka ayaan bilawnay parties of a laptopka qaybaha uu ka kooban yahay waa un computerki oo kala weeye wuxuu kaga bedelayaa isagu uun arki doono wax walba oo dhan hal meel ayuu iskula sameeyay isku dhex jiraa iskula sameeyay meesha waxan kale ay inta badan gaarka u kala socdeen let's find out what different parts of a laptop are used for qaybaha kala bedelan ee maartay laptopka waxyaalaha loo isticmaalo fiirin keyboardka maxaa loo isticmaalaa waa the same key oo kale waa kan fiiri meesha day keyboardki banaanka taagnaa uu ku samaysan yahay qayb computer laptopka kamid ah weeye kii hore intuu sameeyay buuna sameeyaa kadib waan iskaga soconaynaa sidoo kale meeshii ay kala ahaa mouse computerkii desktopka ahaa asagoo wuxuu leeyahay trackpad waa meeshan aad ka controlayso mouse-ka ama waxa screen-ka ka dhacay screen mouse caadiina waad gelin kartaa bariyahan dambe adoo USB da isticmaalaya laakiin waxa asagoo uu ku samaysan yahay wixiisi uu loogu talagalay sidoo loo sameeyay ah trackpad ayuu leeyahay oo mouse-ka u dhiganta power cable waxa kale uu leeyahay power cable marka asagu laptopku inta badan uu charge gareeyo mar baad ka bixin kartaa adoo khaasna batterigu uu fiican yahay laakiin power cable-na uu leeyahay asagana waxa kale uu leeyahay screen asagana uu ku samaysan yahay part of the laptop weeye laakiin asagana screen ayuu leeyahay sida halkan aad ka muuqato buluuga waxa kale uu leeyahay asagana speakers aan aragno speakers uu leeyahay geesaha ay ku jiraan halkan iyo halkaas laakiin asagana speaker ayuu asagana wataa ku samaysan tahay okay be connected you now know the main part of the computer marka waxyaalihi basic waan ku barnay marka waxay rabaan hadda marka inay ka qaadaan sanqiyaasay quiz yar oo lagu su'aalayo oo wixii aad soo baratay lagaaga qaaday si aad naftaada isu tijaabiso inaad garanayso iyo in kaleete marka test your knowledge aqoontaada tijaabi waxa aad garanayso marka wuxuu ku yiri question what do you use to view information on the desktop computerka waxa aad informationkiisa ku aragto muxuu yahay ma speaker ba ma monitor ba ma keyboard ba maadaama uu leeyahay arkid ay tahay speakerku wax ma ku maqashiin keyboardkuna computerka wax ku gelisaa marka waxa weeye waa inuu ahaado monitor well done marka waas ku sheegi monitor baan noqotay ayaan ka socono waa dhamaatay marka activity hal yar su'aal buu ahaa hal su'aal bisoo ma yahay waa activity waa dhamaatay marka haddana halkii hore ee bilowga ahayd
aad ku soo noqon return using the computer ama topic library marka waxaad samayn kartaa inaad ku dhufato return using the computer amaba topic library aad ku dhufato si markaa aad u doorato waxa aad rabto inaad maaragtay barato marka waxaad ku dhufan kartaa oo dhihi kartaa all topics marka ku saxmahay ku listi ku noqonaysa ama waxaad doorataa the absolute basics maxaad rabtaa inaad computer ka barato waxyaalaha aaska u ah dadato explore that getting to know your device inaad device-yadaada aad barato sida macnaha mobileka iyo laptopka iyo qaybihiisa kala bedelan asagana kaasaad ku dhufan getting started online haddaad rabto inaad internetka isticmaasho online bilowdo kanaad ku dhufan safety first ma inaad waxaad rabtaa wax walba kaga bilowdo safetyga iyo saad maartay nabad ugu noqon lahayd onlineka kaasaad ku dhufan more online skills iyo haddaad rabto inaad skillkaaga onlineka kor sii kordhiso remote waxyaalaha sii barato kanaad ku dhufani connecting to others haddaad rabto dadka kale inaad la xiriidho sida Facebook WhatsApp Twitter Skype iyo wixii la mid aha asagana kan ku dhufo all about data waxa data iyo wixii ku saabsan sida waxaad rabtaa 4G macnaha mobileka iyo internetka iyo wixii la mid ah iyo wixii xalaqaad la leh oo data ah waxa lagu dhihi intaasoo data dad lacag inta aad bixiso intaasoo data aad leedahay maxay tahay maxaa kugu filan maxaan kugu filayn seeds ugu xayn kartaa wifi and mobile networks wifi macnaha waxa weeye runtii waa technology Australia laga sameeyay dad badan ma ogo waa technology markii ugu horeysay laga sameeyay wadankan Australia hay'adda baaritaanka ee dawladda Commonwealth ee CSIRO la dhaho ayaa ahayd qoladii ugu horeysay ee bahalkan wifi-ga heshay kaliya wuxuu macnihiisu taagan yahay waxa weeye waa wireless ee meesha marka laba computer isku xidhayso ay ahayd fiilo inaad isticmaasho oo markaa mar kastaba inaad isu dhowdiin ay tahay ama aad maaragtay aad wadada aadan ku samayn karin meel inay wireless ahaan ayagoo fiilo u dhaxaynin ay isla xiriiraan ayagoo maaragtay isticmaalaya frequency marka kale way awoodkaas wixii ku saabsan mobileka networka oo aan mobileka u isticmaalo iyo wifi-ga kaas ku dhufanaysaa online hobbies waxyaalaha maxaa la xirfad ama maaragtay maxaa la balwad waxa aad jeceshahay inaad samayso oo online-ka ku saabsan kaas ku dhufanaysaa all about apps waxaan haday ka soo hadalnay programs oo ah waxyaalaha computerka loo isticmaalo in wax lagu qoro in wax lagu tafatiro oo email lagu diro waxyaalahaas oo kale waa programs bal dhaha kuwa u dhigma oo mobilada loo isticmaalo waxa la dhahaa apps bal dhaha apps ayaa la dhahaa oo u taagan oo la soo gaabiyay applications oo la soo gaabiyay applications oo la mid ah programka la mid ah laakiinse magaca ayaa inta badan hadda wixii mobileka loo isticmaalaa game center wadaad inaad computerka game ku ciyaarto macnaha muxuu yahay iyo wixii aad u baahan tahay iyo wixii tahay isagana kaas ku dhufanaysaa practice area inaad wax ku practice garayso maartay istijaabiso type text into a field learn about the keyboard when and how to double click wixii ku saabsan macnaha practice ah aad u baahan tahay inaad mo practice samaysana halkan ayaad ku samaynaysaa all about Apple iPhones waa hadayt blog horan ka hadalay iPhone-ka ayaa dadka ugu badan xagga caalamka markii loo fiiriyo uma badno laakiin Australia oo kale iyo dalalkan maanta horumaray iPhone-ka ayaan u maleynayaa inuu telefoonka ugu badan la isticmaalo Samsung ayaa ku soo xiga aan maleynayaa marka all about Apple iPhones iPhone-ka macnaha Apple-ku uu sameeyo explore wixii ku saabsan wuxuu yahay iyo xogtaas all about Android phones Android waxa weeye waa operating system-ka ama programka maamulahaya rangareynaya oo ay Google samayso oo magaciisa la dhaho Android laakiin si telefoon aad u far badan oo company kala bedelan ay sameeyeen Samsung baa noqon midka ugu caansan ahaadee ayay u isticmaalaan marka Android-ku waa program gaar ah oo operating system-ka maamulahaya mobileka way meesha Apple-ku iPhone-ka appka systemka maamulahaya ayagu ay leeyihiin telefoonkiina ayaga ay leeyihiin Android waa ka bedelan yahay Android-ka company-ga sameeyay oo Google ah iyo telefoonada ku shaqeynayo kala bedelan yihiin company kale ayaa sameeyay Google-ka ayaana u ogolaaday in la isticmaalo
programkooda maartay lacag la'aan. All about Apple iPads. Hadaan soo nidhi iPadka tabletkiis isku duuba Apple-ka tabletkiis oo la dhaho iPads. All about Android tablets. Fiirso markii hadda Android la yimid waxaa la yidhi tablet baa lagu magacaabay. Waa tablet macnaha weeye kuwa kalena berihii hore way jiri jireen hadda labadana iska dominate garaysay laakiinse way jiri jireen. Windows desktop getting started computerka Windows-ka ah desktop-ka kuwa waaweyn macnaha maxay say isticmaal lahayd iyo waxa yihiin Windows laptop Windows-ka laptop-ka wixii ku saabsan Apple desktop computerka Apple-ka ah oo asagana aad uma badno laakiinse weli wuu jiraa aad bayna qaali u yihiin desktop-ka Apple-ka oo asagana jira. Marka qaybtii koowaad inta ku dhamaynay waxaan rajeynayaa inay wax badan idin tarto idin ka caawinayso wixii su'aalaha waa soo weydiin kartaan khaasatan WhatsApp-kayga. Marka waxaan jeclahaynaa markaad samaysataan abka inaad saan bilow hore idinku soo sheegay Estate Computers aad fadlan aad doorataan inuu yahay maartay centerka idin caawinaya idinka caawiya arrintan idin baray idin sheerayna bahalkan jiritaankiisa. Marka aniga way caawinaysaa inaan macnaha dadka caawinayo khaasatan meeshan Carlton oo dadka aan ka caawiyo si maartay volunteer ama tabarucaad ah aan uga caawiyo waxyaalo badan aan ka u qabto. Marka ay iyana iga sii caawinaysaa marka inaad ku qortaan Estate Computers oo maartay markaad bilowga hore qortaan ESTATE markaad ku qortaan ay markaa deedna ay inta kale idin soo baxayo markaa klik inaad doorataan baad u baahan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.